kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena yaa box office ama ganacsiga aflaanta ay sameeyaan fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar marka koowaad waxaan ku bilaabanaa filimka Street Dancer 3D ayaa dabcan isniintiisii koowaad oo sudhac weyn sameeyay mashruucan faroon dhawaan Sharaada Kapoor hogaamiyay ka yihiin 55% oo sudhac ayuu sameeyay isniintiisii koowaad markii la barbardhigay jimcadiisii koowaad ganacsigu sameeyay mana ahan arrin wanaagsan tan waxay ka dhigan tahay filimka lagu magacaabo Street Dancer 3D inuu dabcan box office ku fashilmi doono ama uu noqon doono mashruuc badbaado oo average ah markii la fiiriyo filimkan waxa uu fiicnaan lahayd 10 ilaa 15% oo sudhac inuu sameeyo maadaama saddexdiisa maalmood ugu horeysa ganacsi dhexdhexaad uu sameeyay haddaba sida ay shaaca ka qaaday shabakada box office India filimka Street Dancer 3D wuxuu keenay isniintiisii koowaad 4.25 karoor waxay ka dhigan tahay wadarta guud muddo 4 maalmood inuu soo xareeyay 43.25 karoor waxaana muuqata filimkan toddobaadkiisa koowaad inuu keeni doono 52 karoor ilaa 53 karoor ganacsi u dhaxeeyo waana ganacsi liita filimka lagu magacaabo Street Dancer 3D ma noqon doono mashruuc khasaare xooggan kala kulmaan kooxda iskale filimkan sababtoo lacag badan ayaa dib ugu soo laabatay mashruuca markii la fiiriyo dabcan iibinta xuquuqaha satellite-ka digitalka music-da waxay ka heleen 65 karoor qolyaha filimkan iskale gaar ahaan shirkadda T-Series sidoo kale ku dhawaad 18 karoor ilaa 20 karoorna waxaa siisay dowladda UK gaar ahaan waaxda socdaalka iyo dalxiiska maadaama filimkan lagu duubay gudaha UK badankiisa laguna soo bandhigay bilicda dalka UK si dalxiisayaasha caalamka marka ay daawadaan filimkan UK ugu soo dalxiis tagaan waana sababta keentay dabcan filimkan dowladda UK lacag inay siiyaan qolyaha sameeyeen laakiin faroon dhawaan Sharaada Kapoor waxaa muhiim ah filimkooda dabcan tiyaatarka ganacsi inuu ka sameeyo oo dabcan macaash ay ka helaan qolyaha tiyaatarka iskale iyo kuwa dabcan cajaladaha qeybiya sababtoo mustaqbalka labadan xidig waxa anfacayso filimkooda hid inuu noqdo laakiin shirkadda filimkan iskale haddii ay macaash hesho kama dhigna filimka inuu badbaado ee dabcan filimkan guushiisa iyo guuldariis waxay ku xiran tahay tiyaatarka ganacsiga uu ka sameeyay iyo hadba dabcan faa'iidada khasaarada ay la kulmaan qolyaha tiyaatarada iskale kuwa cajaladaha qeybiyaan dhawaanahan Bollywoodka waxay noqotay shirkad kasta oo film sameyso ka hor intuusan soo bixin macaash inay ka helaan maadaama dabcan xuquuqaha kala duwan ay iibinayaan sida satellite-ka digitalka iyo music-da lacag fiican ay ka helayaan isku soo wada doo filimka lagu magacaabo Street Dancer 3D haddii uu toddobaadkiisa labaad isceliyo waa macquul inuu noqdo mashruuc badbaado oo dabcan qolyaha cajaladaha qiimeeyaan lacagtooda dib ugu soo laabato taasina niyad jab ayaa u tahay faroon dhawaan Sharaada Kapoor oo labadan xidig waxa anfici lahayd filimkooda hid inuu noqdo oo dabcan macaash xooggan laga helo daawadayaasha qiimaha badan haddii aan fiirino filimka Banga ee dabcan hogaamiye ka tahay kan Ganaronet kan waa u dhamaatay khalaas sababtoo ay wuxuu sameeyay 40% hoos u dhac isniintiisii koowaad kadib markii uu keenay 1.25 karoor filimkan hoos u dhacan ma xamili karin sababtoo ah saddexdiisa maalmood ugu horeysa ganacsi liita ayuu sameeyay haatan waxay ka dhigan tahay muddo 4 maalmood filimka Banga inuu soo xareeyay 13 karoor sida ay shaaca ka qaaday shabakada box office India toddobaadkiisa koowaadna ma dhaafi doona filimkan 16 karoor ilaa 17 karoor wuxuu noqonayaa filimka Banga mashruuc labaad atirsho hogaamiye ka tahay oo sanadkan gudihiisa fashilmo maadaama filimkii Jabbaag ee dabcan Dabika Budukaan hogaamiye ka ah si weyn u fashilmay labadan filim markii la fiiriyo miisaaniyad ahaan 10 karoor waxaa badan filimka Jabbaag laakiin waxay ka sinaan doonaan Dabika Budukaan iyo Kangana labadaba guuldaro inay qaateen guuldarada ay qaateen mas'uuliyadda ayaga iskama lahan sababtoo filimka ay sameeyeen bandhigooda iyo jilinkooda waa la amaanay fariintiisa laakiin qolyaha iska laha qaladka iska maadaama ay ku aadiyeen waqti aan wanaagsaneyn oo dabcan tiyaatarada kula tartamaan filimada Street Dancer iyo sidoo kale Tanhaji markaan la xasuusino filimka lagu magacaabo dabcan Banga wuxuu haatan ku jira xaaladiisii ugu liidatay sababtoo Street Dancer uu ka ganacsi badanaya Tanhajina uu ka ganacsi badanaya waxay noqotay marka filim masraxa ku cusub inuu ahaado dabcan dooqa saddexaad ee daawadayaasha mana anfacaysa kan Ganaronet waxaan u rajaynaynaa soo kabasho adag xidigta inay sameyso maadaama mashruuceeda gabi ahaan buu ka fashilmay daawadayaasha qiimaha badan bal markaan in la wadaagno xogta filimka Tanhaji The Unsung Warrior Ajay Devgan hogaamiye ka yahay filimkan inaba caadi ma sidoo uu ku socdo isniintii saddexaad wuxuu keenay 4 karoor oo dabcan wuxuu ka ganacsi badiyay filimka Banga wax yarna wuxuu u jirsaday dabcan ganacsiga uu sameeyay filimka Street Dancer 3 waana laba filim masraxa ku cusub waxay ka dhigan tahay Ajay Devgan Saif Ali Qani Kajal filimkooda muddo 18 maalmood inuu soo xareeyay 222.65 karoor ama 223 karoor sida ay shaaca ka qaaday shabakada box office India filimkan blockbuster ka noqday cimri ahaantiisa wuxuu ku istaagi doonaa 260 karoor ilaa 275 karoor wuxuuna haystaa jaanis wanaagsan oo ku sii gadmi kara labada toddobaad ee nagu soo folle filimka Tanhaji wuxuu sameyn doonaa historic business ama dabcan ganacsi taariikhi toddobaadkii saddexaad markii loo fiiriyo haatan toddobaadkii saddexaad 4 maalmood ugu horeysa 29 karoor iyo bar inuu soo xareeyay wuxuu ka tilaabi doonaa filimkii sanadka hore Bollywoodka ka yaabsaday Uri the Surgical Strike oo dabcan toddobaadkii saddexaad kana 37 karoor haatan Tanhaji waxa kaga dhiman toddobaadkii saddexaad 3 maalmood kaga dhiman waana qasab lacagta dabcan uu soo xareeyay Uri 37 karoor inuu ka tilaabi doono sida muuqata taariikh ahaan wuxuu noqon doonaa Tanhaji filimka afraad ee u suura gashay toddobaadkii saddexaad inuu dabcan 40 karoor keeno ama uu ka tilaabo darajadaas haatan waxay u gaartay filimada Bahubali The Conclusion kaasi oo soo xareeyay toddobaadkii saddexaad 69.43 karoor waxaa ku xiga filimka Dangal Amar Khan sameeyay 44.2 karoor ayuu keenay toddobaadkii saddexaad iyo sidoo kale isla filimka Amar Khan sameeyay BK oo 41.32 karoor keenay toddobaadkii saddexaad waxay u tahay Ajay Devgan wax weyn dabcan
dabcan inuu ku qaanad noqon doono filimada Bahubali, Dangal iyo BK oo dhamaantood dabcan all time blockbuster. sidoo kale waxaa xusud mudan filimka Tanhaji in gobolka Maharashtra Mumbai xarun u tahay ganacsi ahaan toddobaadkii saddexaad uu ku garaaci doono filimada Bahubali The Conclusion. tani waa historic ama wax taariikhi ah haddii la helo film Bollywood oo dabcan Bahubali la tartami karo toddobaadkii saddexaad, waxaana u muuqda mashruucaas haatan Tanhaji inuu noqonayo oo dabcan gobolka Maharashtra kaliya kula tartamay, halka filimka Bahubali The Conclusion 3 sano ka hor oo dabcan ganacsi taariikhi ka sameeyay min tuulo ilaa magaalo. daawadayaasha qiimaha badan sida caadiga waxaan la wadaagnaa Today in History maanta kale taariikhan aflaanta soo baxeen. maanta kale waxaa soo baxay dabcan filimka lagu magacaabo Dullara Govinda hogaamiye ka ah, sidoo kale Karisma Kapoor kula jirta Gulshan Grover iyo sidoo kale Ranjitna ay dooran muhiim ku lahayn. mashruuca Dullara wuxuu soo baxay dabcan sida haatan diiwaan gashan 28 Janaayo sanadii 1994. filimkan wuxuu noqday mid guuleysto average wuxuu soo xareeyay 3.51 karoor, waxaa lagu qarash garay 1.80 karoor. Dullara qoryaha cajaladaha qaybiyaan waxay ka heleen 1.51 karoor. mashruucan waxaa tigid u goosteen 6,824,000 oo qofood, lacagtii 3 karoor bar uu keenay filimka Dullara 26 sano kadib waxay u dhigmataa 68 karoor. sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan maanta kale waxaa soo baxay filimka lagu magacaabo Dilto Bajaj G oo la daawado 28 Janaayo sanadii 2011. filimkan waxaa hogaamiyaalkan shactiradii jaceylka isku jiray Ajay Devgan, Imran Hashimi iyo jilayaal kale. mashruucan wuxuu noqday mid guul dareysta oo follow Dilto Bajaj G wuxuu soo xaray 28.21 karoor, waxaa lagu qarash garay 29 karoor. filimkan qolyaha cajaladaha qaybiyaan waxay ka heleen 13.70 karoor. sidoo kale waxaa tigid u goosteen dabcan 4,243,000 oo qofood. mashruucan lacagtii uu soo xaray 28 karoor muddo haatan laga joogo dabcan 9 sano kadib waxay u dhigmataa si diiwaan gashan 42 karoor. sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan maanta kale waxaa la daawaday filimka actionkii qayaanada isku jiray Blackmail oo dabcan ay wada sameeyeen Ajay Devgan, Sunil Shetty, Priyanka Chopra. inkastoo filimkan fariintiisa heer sare ahayd bandhiga jilayaasha la amaanay, haddana wuxuu noqday filim burbur oo disaster sababta uu burburo waxay tahay filimka Blackmail in dabcan waqtigii lagu talagalay uu kasoo daahay oo ahaa mashruuc meel iska dhigay oo waqtigii ku habboonaa aan tiyaatarada la saarin. filimka Blackmail waxaa la daawaday 28 Janaayo sanadii 2005. cimri ahaantiisa wuxuu soo xaray 4.14 karoor, waxaa lagu qarash garay 9 karoor bar. filimka Blackmail qolyaha cajaladaha qaybiyaan waxay ka heleen 1.74 karoor. filimkan dabcan waxaa tigid u goosteen 1,506,000 oo qofood, lacagtii 4 karoor uu soo xaray filimka Blackmail muddo haatan laga joogo 15 sano kadib waxay u dhigmataa 15 karoor. ugu dambeyntii maanta kale daawadayaasha qiimaha badan aflaanta la daawado waxaa kamid filimka shactiradii jahwareerka isku jira lagu magacaabo Badmashari Lolo Barsad Yada. filimkan waxaa hogaamiyaalka Sunil Shetty iyo Johnny Lever oo Soomaali u yaqaanay Amadi Mahesh Masjagar iyo jilayaal kaleeto. filimkan shactirada badnaa wuxuu noqday gabi ahaan mid burburo oo disaster wuxuu soo baxay 28 Janaayo sanadii 2005. filimka Badmashari Lolo Barsad Yada wuxuu soo xaray 1.63 karoor, waxaa lagu qarash garay 6 karoor bar. qolyaha cajaladaha qaybiyaan waxay ka heleen 63 lag oo kaliya. mashruucan waxaa tigid u goosteen 609,000 oo qofood. filimkan 1.63 karoor lacagtii uu keenay muddo haatan laga joogo 15 sano kadibna waxay u dhigmataa 6 karoor ay u dhigmataa. daawadayaasha qiimaha badan bal markaan aadna koonfur Hindiya haddii aadan la wadaan ganacsiga filimka Disco Raja dabcan Ravi Teja hogaamiye ka filimkan wuu burbura markii loo fiiriyo dabcan muddo 4 maalmood inuu soo xareeyay 11 karoor ganacsigiis dibad iyo dal markii la isku daro waxa loo yaqaan World Wide Gross. filimka Disco Raja gudaha Hindi wuxuu ka soo xareeyay lacagta nadiifka 8 karoor, sidoo kale canshuurta ka horna wuxuu keenay 9 karoor. suuqyada caalamkana si weyn kaga burbura filimkan oo dabcan wuxuu ka soo xareeyay 1 karoor bar. filimka Disco Raja waqti qaldan ayuu ku soo aaday sababta tiyaatarada waxaa haysta filimkii stylish star Allu Arjun Allah Vekum Thibarmalu. waan ka xunnaa ninka lagu magacaabo Ravi Teja dhawaanahana dabcan waxaa daba kacay burbur. filimkan kuma sii jiray xitaa haddii dabcan lacag fiican uu keeni lahaa waxbay ahaan lahayd. filim Ravi Teja hogaamiye ka yahay oo 4 maalmood 11 karoor ku keenay waxa loo jooga ma ahan ama wax la filay ma aysan ahayn. bal markaan fiirino filimka Allah Vekum Thibarmalu hogaamiye ka stylish star Allu Arjun looma dhawaan karo mashruucan haatan muddo 15 maalmood wuxuu soo xaray 242 karoor. ganacsigiis dibad iyo dal isku daro waxa loo yaqaan World Wide Gross. lacagta nadiifka gudaha Hindi wuxuu ka soo xareeyay 178 karoor, canshuurta ka hor wuxuu keenay 207 karoor. suuqyada caalamkan wuxuu ka soo xareeyay 35 karoor. filimkaana wuxuu noqon doonaa taariikh ahaan filimkii ugu horeeyay oo koonfur Hindi sameeyeen oo hal luqad lagu daawaday kaasi oo 200 karoor nadiif gudaha Hindi ka soo xareeyo. lacagtaasna haatan waxaaba kaga dhiman wax yar oo 22 karoor kaga dhiman, hubanti ahaan rekoorkaas wuu sameyn doonaa. sidoo kale filimka Sultan Mahesh Babu hogaamiye ka Sallaru Nikabaru asigana haatan wuxuu maraa 211 karoor muddo uu tiyaatarada saareen 16 maalmood. sidoo kale tan wuxuu soo xareeyay 160 karoor ayuu soo xareeyay lacagta nadiifka gudaha Hindiya. canshuurta ka hor wuxuu keenay 185 karoor. suuqyada caalamkana wuxuu marayaa 27 karoor. filimkan wuxuu noqday mashruuc guuleysto macaash laga helo oo hit dhameystiran ayuu noqday. dhinaca kale filimkii Darbaar ee Rajnikanth hogaamiye ka ah sidoo kale Sunil Shetty laadar ka ah asigana wuxuu marayaa sida haatan diiwaan gashan muddo 19 maalmood 248 karoor. waa ganacsigiisa World Wide Gross isku daray waa dibad iyo dal, halka lacagta gudaha Hindi nadiif uu ka soo xareeyay 150 karoor. ka hor wuxuu keenay 174 karoor. filimkan suuqyada caalamka wuxuu ka marayaa 74 karoor, wuxuuna noqday hit dhameystiran ayuu noqday maadaama macaash uu bilowday lacagtiisina uu soo celiyay. bal markaan aadna dhankaasi Hollywood ka daawadayaasha qiimaha badan waxaa ciwaano waaweyn sameynaya filimka lagu magacaabo
1917 ama 1917 loo yaqaano filimkan dabcan biladaha badan lagu qaatay haatan hubanti aan la hubo Oscarka abaalmarinada badan in lagu qaadan doono ganacsi waali ayuu sameynaya haddana waxaa la yaabaa filimkan shirkadda Universal Pictures iska leedahay tiyaatar kooban ayaa laga daawanaa meel kastoo daafaca caalamka haddana wuxuu sameynaya ganacsi waali ee muddo bil waxa uu soo gashay filimka lagu magacaabo 1917 soo xaray 202 milyan oo doolarka Mareykanka ganacsigiisa worldwide gross wuxuuna noqday hit weyn ayuu noqday maadaama shirkadda Universal Pictures filimkan ku qarash gareeyeen miisaaniyad u dhaxaysa 90 milyan ilaa 100 milyan oo doolarka Mareykanka filimka 1917 gudaha Mareykanka wuxuu ka noqday hit weyn maadaama uu soo xareeyay 104 milyan oo doolarka Mareykanka asigoo 4 toddobaad saaran international marketkan wuxuu ka soo xareeyay 98 milyan oo doolarka Mareykanka sidoo kale filimkan fariintiisa aadka loo amaanay xitaa gudaha Hindi uu ka gadma haatan wuxuu ka noqon rabaa mashruuc guuleystay waxaa la yaabaa gudaha Hindi filimkan waxaa la saaray 150 tiyaatar oo kaliya muddo 10 maalmoodna haatan wuxuu soo xareeyay 5.23 karoor waxaan caqliga gali karin filim 150 tiyaatar kaliya laga daawanayo in 5 karoor uu soo xareeyo sidoo kale tan waxaa laga daawanayaa kaliya magaalooyinka waaweyn ee gudaha Hindi ku yaala sida Mumbai Delhi iyo qaar kamid ah magaalooyinka horumarsan ee koonfur Hindi ku yaalo sidaa darteed filimka mar walba oo la daawanayo 90% tiyaatarada waa buuxaan sababtoo ah 150 tiyaatar kaliya laga daawanaya dalabkiisana aad u sareeya 1917 dabcan meel walba suuqyada caalamka sidaas ayuu kaga gadmaya asigoo dabcan small number of theaters tiyaatar kooban la saaray filimkana dabcan wuxuu ka hadlayaa sheeko aad iyo dadka u soo jiidatay oo dabcan ku saabsan xilligii 1917 dagaalkii koowaad adduunka markuu socday laba askari oo ciidamada British ka tirsan oo dabcan loo xil saaray inay qaataan howlgal aan la fulin karin kaasi oo ku aadan inay gudaha u galaan goobta cadawga kadibna ay warbixin xasaasi ka soo gudbiyaan waliba sirta ay soo gudbin doonaan waa sirka caawin doonta Britishka ciidamadooda inay ka hortagaan 1600 oo nin oo duulaan ku ah waa xilligii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunyada sidoo kale filimkan waxaa xiiso u sii yeelaya labada askari ee Britishka ee loo xil saaray xogtan xasaasiga goobta cadawga inay ka soo helaan in dabcan labadan askari mid kamid ah walaalkiisa uu dabin ugu jiro ama ay haystaan cadawga sidaa darteed labadan askari ee dhibanaha waxay iska caawin doonaan laba waajib inay gutaan mid wuxuu yahay badbaadinta dalkooda midna wuxuu yahay dabcan walaalkood inay badbaadiyaan daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena aba ku safiska ama ganacsiga aflaanta intaasaan kusoo ilaalinana fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu